انتم كنتوا تمروا على ليبيا ما يسمى بليبيا الان بدون جواز سفر. adinku waxaad soo mari jirteen liibiya ama dalka haatan lagu magacaabo liibiya adinkoo bilaa baasaboor ah. waxaad aadi jirteen xajka adinkoo bilaa baasaboor ah. markii isticmaalkii reer galbeedku uu noo yimid isla markaana naga tegay oo uu na siiyey xornimadeennii waxa ayna siiyeen xorriyad been abuur ah. waxay gacanta noo geliyeen dabadhelifyo basaasiin ah. waxay noo dhiibeen xigeennadii gumaysiga. waxayna nagu dhaheen waa inaad samaysataan baasaboorro aad ku dhooftaan. waa inaad yeelataan xuduudo si markaas xuduudaha aad isugu qabsataan oo isu dagaashaan. waxay Tunisiyaanka u diideen inuu aado Liibiya. waxay Aljeeriyaanka u diideen inuu aado Morocco. midka Masriga ahna waxaa loo diiday inuu booqdo Liibiya. Suudaan iyo Masaarida ayaa la isku diiday inay isu yimaadaan. waxaa sidaa loo yeelay in ummadani ay ahaato mid curyaan ah. walaalayaal, waa inaan baraarugnaa. halis ayaan ku sugannahay. dhab ahaantii maanta waxaan u dabaaldegaynaa in Tunisiya ay tahay dawlad madax bannaan. Aljeeriyana sidoo kale. alxamdulillaah, cadaabtii la marsiiyey kadib haatan waa madax bannaan tahay. Liibiyana sidoo kale. arrintaasi waa dhab. laakiin damaanad ma haysano in berri aan sii ahaan doono dawlad xor ah iyo in kale. laga yaabee inaan noqonno kuwo mar kale la adoonsado. هذا صحيح، لكن ما نضمن بكره نكونوا مستقلين ام لا، قد نكون مستعبدين. maxaa yeelay caalamkan waa mid aan aqoonsanayn xaqa oo ay tahay inaad awooddaada oo keliya ku maqoonisaa sidaad ku sii joogi lahayd. Falastiin iyada xaq ma lahan miya? shacabka reer Falastiin dhulka ma lahan miya? xaqu waa kaas. may aqoonsadaan waa kaase ma aqoonsanayaan. Falastiin yaa ku haraya. waxaa ku haraya midka awoodda leh ee dadka iyagoo nool aasaya. ha oranina oo keliya wallaahi ummadani waxay xaq u leeyihiin inay aayahooda ka tashadaan. taasi waa maskixiyan, balse yaa ku dhaqmaya. shacabka reer Falastiin wuxuu xaq u leeyahay inuu masiirkiisa go'aansado. haddii uu awood lahaan lahaa isaga aayihiisa samaysan lahaa, uma baahnayn in cid kale u go'aamiso. adduunkan aad u jeediin ee idin khiyaamaya ee la idin leeyahay waa caalam ilbax ah, waa caalam wuxuush ah oo si waxashnimo ah u dhaqmaya, jaahil ah oo liita. waa midkii sababay masiibooyinkii bani'aadamnimo. waa midkii hoggaamiyey dagaalkii koowaad iyo labaad ee dunida iyo weeraradii saliibiga. ilaa iyo haatanna waxa uu horinayaa dagaallo cusub oo lagu burburinayo aadanaha. yaa dilay malaayiintii bani'aadamka ahaa dagaaladii aynu soo dhaafnay. waa caalamkan sheeganaya inuu ilbaxa yahay. waa adduun dambeeya. waxaan mar walba maamula ma ahan shucuubta ee waxaa maamula awoodaha dadka muruqa u sheegta, ka faa'iidaysta, cunsuriyiinta ah, isla markaana naceebku ka buuxo. dadyowga reer Yurub ma doonayaan inay la dagaalamaan Falastiin ama Liibiya. xitaa shacabka Faransiisku ma doonayo inuu la dagaalamo Aljeeriya ama Tunisiya. laakiin ururadan sida joogtada ah u maamula shucuubtaasi ayaa sida aragtida xukuumadahaasi qabaan ee ku dhisan dulmiga iyo dhigmirashada. kooxahaasi waa kuwo naceeb iyo cadaawo badan, waxayna idinkula jiraan dagaal naceeb ku salaysan, mana ka waabanayaan inay idin burburiyaan hadday idinka arkaan tabardarri, hadday idinka helaan meel daloosha. ولن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش ممكن يرضوا عنكم. امشوا استسلموا. امشوا اعترفوا بإسرائيل. yuhuud iyo masiixiyiin kaama raalli noqonayaan ilaa aad diintooda raacdid. suurtagal ma aha inay idinku qancaan oo ay idinka raalli noqdaan. ordaha waayahay isdhiiba. ordaha waayahay aqoonsada Israa'iil. ma anfacayso. yuhuud iyo masiixiyiin kaama raalli noqonayaan ilaa aad diintooda raacdid. iyagu way sii wadayaan inayna maamulaan. way sii wadayaan inay isku dayaan inay gacanta ku dhigaan awoodaheena. ballanteennu waa wax iska caabin. war kale ha dhegaysanina. iska caabin oo keliya. فقط المقاومة. ما تسمعوش أي كلام آخر. المقاومة فقط. xitaa iskaashiga naga dhexeeya annaga iyo iyaga, ixtiraamka aan isdhaafsanno innaga iyo iyaga ma ahan mid soconaya ilaa uu ku salaysnaado awood. hadday ummadani tahay mid xoog leh oo dhibaato gaarsiin karta iyaga, awoodna u leh inay saxan ku guddo, gacanteeduna ay dheer tahay, markaas waxay nala fariisanayaan miiska wadahadalka. waxayna xuduud u yeeli doonaan damacooda isballaarinta ah. حتى التعاون بيننا وبينهم والاحترام المتبادل بيننا وبينهم لا يقام إلا على أساس القوة. إذا كانت هذه الأمة قوية وتلحق بهم الضرر وقادرة أن ترد الصاع صاعين
ويدها طويلة، عندئذ يجلس معنا على مائدة المفاوضات ويجعل الحدود لمطامعهم التوسعية. markaas ayaa waxaa qabsoomaya iskaashi dhexmara annaga iyo ayaga iyo isdhaafsiga ixtiraam labada dhinac ah. laakiin iskaashi dhexmaraya nin xoog leh iyo nin tabar yar, xushmad ka dhaxaysa nin xoog leh iyo nin taag daran, nin baahan iyo nin hodan ah suurtagal ma ahan. waxaasi xeer ma ahan, mana ku tiirsanaanayno. عندئذ يقام التعاون بيننا وبينهم والاحترام المتبادل. أما تعاون بين قوي وضعيف، احترام بين قوي وضعيف، بين محتاج وغني، لا يمكن أن يكون. هذه ليست قاعدة أبدا لا نعتمد عليها. siduu iskaashi noo dhexmari karaa annaga iyo Yurub haddaan annaguna nahay kuwo tabar yar iyaguna yihiin kuwo awood leh? iyagu waxay doonayaan in wadamadeena Carbeed ay noqdaan suuq isticmaala ama laga soo buuxiyo qashinka ay soo farsameeyaan. waxayna doonayaan in aynaan yeelanin awood warshadeed si aanan u farsameynin gaaska, batroolka, saliidda iyo fosfaatka. waxay doonayaan in iyaga ay warshadahooda u qaadaan oo soo farsameeyaan, hadhowna naga sii iibiyaan. waxay doonayaan inaan annagu noqono suuq wax burburiya iyo goob ciidamadu ku tababartaan. haddii dagaal dawladeed uu dhacana waxay iyagu doonayaan inay gacanta ku qabtaan goobahaasi si ay u qabsadaan marinka Jabal Daariq, gacanka Sirta, baab almandab, kanaalka Suweys, marinka Hormuz. waxay nagula dagaalameen webiga Urdun, webiga Yarmouk, webiga Alcaas iyo webiga Liidani. hadda webiyadaas aan idiin sheegay waxaa kulligood haysta Israa'iil. waxaana sidaa loo yeelayaa in carabtu aysan ka faa'iideysan webiyadaas. kadib waxaa imaan doona doorka webiga Dajla iyo Furaat, labada webi ee Ciraaq. iyaguna waa la qabsan doonaa. runtii ummadan khatar ayay ku sugan tahay. ثم يأتي الدور على دجلة والفرات، سيتم احتلالها. هذه أمة في خطر. ها waan farxaynaa, waan dabaaldegaynaa, waan heesaynaa, laakiin waa inaan wax iska caabinaa. bilaa iska caabin waa mustaqbal la'aan. waa inay idin arkaan adinkoo awood leh, adinkoo xoog leh. taasina kuma gaari karno inaan ku heesno xorriyadda Liibiya, xornimada Tunis ama gobonnimada Algeria iyo wixii la mid ah. taasi waxay u baahan tahay midnimo, inaan si degdeg ah u midowno, inaan dadka isku keenno, garbaha isu saarno, ka faa'iideysano awoodaheena, biyaha, miraha, biyaha roobka, biyaha dhulka ku kaydsan, badda, qorraxda iyo dhammaan fursadaha. waa inaan isku geynaa habeen iyo maalin ka hor inta uusan gumaystuhu mar labaad noo imaan. wixii ka soo hara arrintaas waa dhimasho, wixii aan taa ahaynna waa waqti lumis iyo khiyaano. هذا يتأتى بالوحدة فورا، بحشد البشر الكتف على الكتف، والإمكانيات والمياه والحبوب ومية المطر والمياه الجوفية والبحر والشمس وكل الإمكانيات يجب أن نرصها ونحشدها ليل نهار قبل أن يأتي الاستعمار مرة أخرى. أي توجه غير هذا مهلكة، تضييع للوقت وخداع. wixii aan ka ahayn inaan u jihaysano midnimo dhab ah oo degdeg ah oo aan ka laabasho iyo cabsi lahayn waxay noqonaysaa khiyaano lagu sameeyay mustaqbalka ummadda Carbeed, khiyaano loo geystay jiilasha soo socda. yuhuuddu hadda waxay samaysanayaan gantaalo gaari kara 4000 oo mayl si sawaariikhdooda u gaarto Algeria iyo Tunis. Israa'iiliyiintu lama dagaalayaan Falastiin oo qura ee waxay la dagaalamayaan ummadda Carbeed. waxani waa dagaal jiritaan ee ma ahan dagaal xuduudeed. waxayna sugayaan maalinta la xalliyo mushkiladda Falastiin si ay isugu ballaariyaan inay weeraraan inta ka hartay shucuubta Carbeed. الإسرائيليين لا يقاتلون ضد الفلسطينيين فقط، يقاتلون ضد الأمة العربية. هذا قتال وجود وليس قتال حدود. وهم ينتظرون اليوم الذي يحل فيه المشكل الفلسطيني لكي يتفرغوا للهجوم على بقية الشعوب العربية. godka reer Falastiin wuxuu wax isaga caabinayaa idinka dartiin, waana in la taageero oo aan awooddeena oo dhan isugu geynaa godka reer Falastiin. waayo godka Falastiiniyiintu waa furinta hore ee difaacaysa ummadda Carbeed. haddii jiidaas hore ay soo jabto waxay ciidamada Yuhuudda u soo dhaqaaqi doontaa dhinaca wadamada Carbeed iyo Khaliijka. waxayna doonayaan inay boqortooyo Israa'iil leedahay ay ka taagaan dhulalka Carbeed. لأن الخط الفلسطيني هو الخط الأمامي للدفاع عن الأمة العربية. إذا سقط هذا الخط ستتقدم القوات الإسرائيلية إلى البلاد العربية من محيط الخليج. يريدون إقامة إمبراطورية إسرائيلية فوق الأرض العربية. hadhegaysanina sheekada ah barnaamijka nabadda waa khiyaano iyo marin habaabin bulsho. barnaamijkee nabadeed ayaad ka hadlaysaan?
waa barnaamij ku salaysan burburin iyo xasuuq ka socda Lubnaan, Suuriya, Falastiin, Tunis, Liibiya. barnaamij nabadeed ee aad ka hadlaysaan waa midkii Israa'iil u suurageliyay in diyaaradaheedu ay duqeeyaan Falastiiniyiinta ku nool magaalada Tunis. haatan Falastiiniyiinta iyagoo nool ayaa la aasayaa. hadda waa iyagoo nool. waa taas hannaanka nabadda ee aad ka hadlaysaan. taasna waxay ku timid hoos u dhaca iyo talaxumada Carbeed. ayaan waxaa jirtay ummadda Carbeed ay awood lahayd, qowmiyadda Carbeedna dhawaqoodu xoog badnaa, calanka qowmiyadda Carbeedna sarreeyay sida xilligii Jamaal Cabdinaasir. shacabkan aad ku arkaysaan Liibiya, Aljeeriya iyo Tunis, dhalinyaradan iyo jiilkan cusub waa jiilkii careysnaa ee Falastiin. jiilkan waa jiilkii careysnaa. waa wax aan la aqbali karin. siyaasadahaasna waa in lagu gacan seeraa gebi ahaantood. jiilka careysan ee haatan wuxuu doonayaa inuu burburiyo xuduudaha, in la midoobo, in awooddii la soo celiyo, in iska caabin laga horgeeyo, in Falastiin la xoreeyo, in la dhiso hanti wadaag iyo in khayraadka Carbeed loo qaybiyo dhammaan dadka Carbeed. waxaa jira dad hodan ah iyo kuwa sabool ah, nin ladan iyo nin faqiir ah, taliye iyo loo taliye, mid hubaysan iyo mid aan hubaysnayn. xaggee ka yimid kan ladan? xagguu hantida ka keenay? waa hantidii muwaadiniinta kale ee saboolka ah. marba haddii aad aragto taajir, macnaheedu waa mid saboolna inuu jiro. haddaad waddan ku aragto ruux sabool ah, macnaheedu waa in halkaas ku nool yahay mid taajir ah. kan hantiilaha ah maalqabeen ma noqon karo ilaa waa marka uu hantida kuwa saboolka ah qaato. من أين هذا الغني؟ من أين جاء الغنى؟ من ثروة بقية المواطنين الفقراء. إذا هناك غني معناه في فقير. إذا وجدت في أي بلد فقير معنى هذا أن هناك واحد غني. الغني لا يكون غني إلا من ثروة الفقير. waa lagama maarmaan in dadkoo dhan loo cadaalad sameeyo, isla markaana khayraadka loo qaybiyo dhammaan shacabka waddanka Carbeed. shidaalka Carbeed Carab ayaa iska leh. Tunis shidaal ma leh. liibiyana shidaal ayay leedahay. waa qalad. وبترول العرب للعرب. تونس ما عندها بترول، ليبيا عندها بترول. غلط. batroolka Liibiya waxaa iska leh Tunisia, Liibiya, Suudaan iyo Yemen. walaalayaal, tani waa muuqaalka aan maanta ku noolnahay. waa xaaladda aan maanta ku sugannahay. waa inaan ka fikirnaa berri si dhibaatadani aysan u soo noqon. waa inaysan soo noqon dhibaatadii ka dhacday saaqad Sayidii Yuusuf. waa inaysan mar kale soo noqon cadaabihii laga waraabiyey shacabka Aljeeriya, shacabka reer Aljeeriya ee uu dhibaateynayo caddaanku isla markaana la barakiciyey. waa inaynu noqon maanta sida Falastiin oo kale. ma jirto wax la yiraahdo ilaalinta midnimada Carbeed. warkaas ha dhegaysanina. ama waa inaan midownaa ama waxaad noqon doontaan sida hindida cascas. ma maqasheen hindida cascas ama alkhajar ee ku kala firiirsan adduunka dacaladiisa؟ ليس هناك حماية للوحدة العربية. ما تسمعوش أي كلام. يا وحدة يا تصبحوا زي الهنود الحمر. تسمعوا بالهنود الحمر، تسمعوا بالغجر، تسمعوا بالغجر اللي مشتتين في جميع أنحاء الأرض. carab waxaa la rabaa in la kala qoqobo. waxani waa loolan. ummad ayaa idin soo daantaansatay. waxaa waajib idinku ah inaad iska difaacdaan. maxaa dhacay? ma cabsanaysaan? ma adeegyada idinku yar? xaq uma lehidiin miyaa inaad ugu noolaataan qorraxda hoosteeda ama dhulka dushiisa si awood leh؟ هذا يتحدي. أمة تتحدى فيكم. يجب أنكم تتحدوا هذه الأمة. لماذا؟ هل أنتم جبناء؟ ما عندكمش إمكانيات؟ ما عندكمش حق أن تعيشوا تحت الشمس وفوق الأرض بجدارة؟ ummad Maraykan ah ayaa idinku soo gardarootay. waa inaad idinkuna iska caabisaan. ma ahan in hortooda aad madaxa ku raaricisaan. ummad reer Yurub ah ayaa idinku soo gardarootay. waa inaad idinkuna iska waabisaan. haddaan rabno iska waabintaasi aan ku weyno malaayiin kale, haddii uu soo haro 1 milyan oo Carab ah oo xor ah waa nagu filan yahay. aan horay u soconno, halgankan sii wadno. أمة أمريكية تتحدى فيكم يجب أن تتحدوها، مش تطاطوا الراس أمامها. أمة أوروبية تتحداكم يجب أن تتحدوها، ولو نقدم ملايين أخرى في سبيل هذا التحدي. لو يبقى مليون عربي حر يكفي. نعم، وإلى الأمام والكفاح مستمر.